oo gabayadiisii jacaylka ahaa midkood ku yidhi sida inan yar oo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel ilayna seexshay hadba waxaan la urugoonayaa uurku taallada koritaanka carruurtu inuu ugu wacan yahay marka aabba iyo hooyaba ay u wada joogaan oo jacaylkooda iyo daryeelkooda diyaarka ah ay ku hoos barbaaraan ilmaha labadooda isla helaa wuxuu ku koraa caafimaad ooga iyo mid maskaxeed oo markuu nolosha waayeelnimo dhex muuquurto wax weyn ugu filaada uuna u aayo waxay u badan tahay waalidkiisa oo dhagadhani canugii ay soo wada koriyeen inuu isku kalsooni iyo geesinimo la weynaado marka la barbar dhigo kii yaraan ku agoontoobay ama ku rajoobay ama ay labada guuldarraba isu raaceen iyada oo labadooduba ay sidaa laga maarmaan u yihiin ayaan haddana aabba iyo hooyo la isgarab dhigi karin gaar ahaan heerarka hore ee koritaanka inta uu ilmuhu maraayo markuu dhasho ilaa marka uu 10 tirsanayo heerarkaas iyaga ah hooyo lala mid maaha inta badan aabba waa maqan yahay oo xoolaha iyo hawlahooda ama sadcaal ganacsi ayuu qoyska uga fogaadaa qofka canuga ka warqaba ee cudur iyo caafimaad wixii uu ku sugan yahay la socotaayo waa hooyada iyada ayaa wax siisa iyada ayaa bal inuu baahi ku seexday markuu seexdo bogga iyo beerka ka taabata iyada ayaa hadal iyo hadaaqba barta socodkana ku tacliimisa iyada ayaa wixii u daran u sheegta wixii u roonna ku hanuunisa markuu ooyo iyo markuu farxaba waa halka uu ku soo ordo waa gaashaan adag oo tabaryaridu intay hayso bala oo idil uga gudban dulucdu waxay tahay haddii aanay kulley labadoodu u wada joogayn waxaa canuga u roon inuu agoontoobo intii uu rajoobi lahaa iyaga oo muluq ah oo dhabta iyo dhabarka lagu hayo carruurta inta rajowda ka noolaataa waa nasiib badan yihiin aabbahoodna allaha ka dhigay xanaanadii hooyo cid u haysa ma helaan wax halkeedii u geli karaana ma jiraan si ay haddaba ilmahaasi daryeel habboon u helaan waxay soomaalidii hore u soo rogtay dhaqanka xiskiisanka la yidhaahdo hooyadii carruurta rajada ah ka tagtay walaasheed ayaa aabbihii la siiyaa si ay gabbaad ugu noqoto carruurtaas ay habaryarta u tahay kuwa ay dhali doontana u walaal noqon doona taasina waa haddii ay carruurtaasi nasiib leedahay oo habaryartood loo guursado haweenaydii dhimatay gabar walaasheed ah oo lagu xiskiisamaa haddii aanay reer xididkii u joogin wuxuu aabbuhu carruurtaas rajowday u geyn jiray haweenka kale ee uu qabo middood haddii ay jiraan haddiise aysan jirin oo haweenaydii ka dhimatay uu xilo ka lahaa naag cusub oo ilmaha rajada ah la korisa ayuu u guursan jiray iyada oo kuwaas haysa ayay iyaduna kuwa kala dhashaa markaas baana kuwii rajada ahaa dhibaatadoodu bilaabataa sida Soomaalidu badi u rumaysan tahay ayada waxaa lagu xantaa ilmaha uu ninkeedu dumarka kale ka dhalo oo ay hayso inay gacan bidixayso ama aysan u roonaan ilmahaas iyaga ah hooyo dhimatay ha ka tagto ama haweenay la furay ha laga reebee waxay markay koraan u badan yihiin inay aayooyinkood ka sheegtaan siyaabihii ay ula dhaqmi jireenna ku eedeeyaan inkastoo aysan dhammaantood sidaa wada ahayn haddana waxaa aayooyinkaa lagu xantaa carruurta rajada ah ee ahayaan inay hawsha ku badiyaan oo ay iyaga wax walba u diraan inay dilaan oo inta odagu maqan yahay ay garaacaan odaygu markuu soo hoydo inay ku diraan oo gafaf aysan gelin u maleegaan caana iyo calalis waxa carruurta la siiyo inay ku yareeyaan haddii kuwaas iyo kuwa ay iyadu dhasha diriraanna way u garab goreeyaan oo kuwooda u hiiliyaan waxaa ka daran dagaal maskaxeedka kale ee carruurta rajada ahi ay aayooyinka haya qaarkood ka mutaan waxaa lagu eedeeyaa inay kuwaasna doqomo wada salleella ah inay yihiin dubaaqooda ku beeraan kuwa ay dhaleenna diricyo meelan oo geesinimo iyo caqli meel dhigtay ku tilmaamaan maxaa sidaas ugu wacan iyaduna waa su'aal meesha ku jirta oo culimmada nafta jawaab uga baahan silaca iyo saxariirta canuga yar ee rajooba uu aayadii ka mudan karo waa aayo xun haddii ay tahay waxaa inoo muujiyey hormuudka maansayahanada Soomaalida raaga ogaas oo gabayadiisii jacaylka ahaa midkood ku yidhi sida inan yar oo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel ilayna seexshay hadba waxaan la urugoonayaa uurku taallada